السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعي صاحبيال كسو dhawaad muuqaal cusub. sidaan ognahay waxa soo dhow ama la jooga xilliga ay furmi lahaayeen jaamacadaha dalka. Ardayda dhameysatay waxbarashada dugsiga sarena waxay diyaar garow xoogan ugu jiraan sidii ay u sii wadan lahaayeen safarkooda waxbarasho isagana diiwaan gelin lahaayeen jaamacadaha. haddaba su'aasha ah sideen ku dooran karaa kulliyadda ugu fiican isla markaana igu habboon ayaa ah su'aasha ugu badan ee ardayda isweydiiyaan xilligan oo kale. waxaan jeclaystay inaan ka jawaabo su'aashaas ee ku soo dhawaada mawduuceena maanta. inta aanan ka jawaabin su'aashaas isla markaana aan mawduuceena gudaha u gelin waxaan rabaa inaan kugu caddeeyo arrintan. ma jirto kulliyad kale ka fiican. kulliyadda ugu fiican ee aad ka soo baxdid waa kulliyadda aad ku noqotid qofka ugu fiican. waxaan kala jeedaa hadalkan in kulliyad walbo aad dooratid aad si fiican u baratid. markaas waxay ahaataba kulliyaddaas adiga waxaad noqonaysaa qof dadka oo dhan ay raadinayaan. xaqiiqdii mushkilada badan ayaa waxay ka taagan tahay siday ardaydu u dooran lahaayeen kulliyadaha ay rabaan. oo waxaad arkaysaa arday dhamaysta dugsiga sare oo haddaad weydiiso maxaa kuu qorshaysan inaad barato kugu jawaabaya wallaahi ma aqaano, waan ku wareersanahay taqasuskii aan baran lahaa iyo wixii la mid ah. sidoo kale waxaad arkaysaa arday dhiganaya jaamacadda oo sanad ama 2 sano marka uu sii dhiganayo kugu dhahaya waxaan rabaa inaan ka beddesho kulliyadda. dhammaan dhibaatooyinkaas aan soo sheegnana waxaa sabab u ah qofka aan dooran taqasuskii ku habboonaa. haddaba ii ogolow inaan kula wadaago qaabka ugu fiican ee aad u dooran kartid kulliyadda kugu habboon. waxaan kula wadaagi doonaa 3 qodob oo haddii aad si sax ah u raacdid kuu suuragelinaysa inaad dooratid kulliyadda kugu habboon. qodobka koowaad, maxaad doonaysaa inaad noqotid jaamacadda kadib? waa inaad isweydiisaa kana jawaabtaa su'aashan ka hor inta aadan bilaabin doorashada taqasuska. maxaad jeceshahay inaad samaysid ama noqotid markaad jaamacadda dhammaysid? tusaale ahaan, marka aad jaamacadda dhammaysid ma waxaad doonaysaa inaad noqotid ganacsade, dhakhtar, umuliso, injineer, wariye, duuliye? maxaad doonaysaa inaad noqotid jaamacadda kadib? marka aad heshid su'aasha jawaabteeda kadib waxaad dooranaysaa kulliyadda lagu barto waxaas aad rabtid. tusaale ahaan, waxa kuu soo baxday inaad ganacsade noqotid. Simple waxaad gelaysaa kulliyadda lagu barto maareynta ganacsiga. sidoo kale waxa kuu soo baxday inaad wariye noqotid. waxaad gelaysaa kulliyadda saxaafadda lagu barto. dhammaan kulliyadaha kalena sidoo kale. qodobka labaad, dooro kulliyadda aad jeceshahay. qodobkan aad ayuu muhiim u yahay. waxaan inta badan la kulmaa ama isoo gaara maadaama aan ka tirsanahay baxda waxbarashada caqabad ka dhex jirta ardayga iyo waalidkiisa. caqabadaas oo ah inuu ardayga rabo taqasus uu jecel yahay, waalidkan uu la rabo taqasus kale oo uu isaga u arko mid wanaagsan ama suuq leh. haddaba arday, mar walba qofka wax baranaya waa adiga, qofka mustaqbalkaas ku noolaanayana waa adiga. ee dooro kulliyadda aad jeceshahay adiga oo waalidkaagana ku qancinayo kulliyaddaada. xitaa waxaad kaashan kartaa maamulaha ama macallimiinta qaar ee iskuulkaaga si aad waalidkaaga ugu qanciso taqasuskaaga. dhanka kale, waalidiintu waxaan kula talin lahaa in ardayda ay u daayaan kulliyadaha ay jecel yihiin isla markaana doonayaan inay bartaan. waxaa la ogaaday in 60% ardayda ka soo baxa jaamacadaha aysan ku shaqayn kulliyadaha ay soo barteen, taas oo ay ugu wacan tahay qofku aan soo baran taqasuskii uu jeclaa. waxaana qayb ka noqon karta dhibaatadaas ardayda oo lagu qasbo kulliyad aysan xiise u hayn. imisaa ka soo baxay ama dhameeyay kulliyad laakiin hadda ku shaqeeya wax ka duwan wixii ay soo barteen. haddaba hadda ayaad fursad haysataa inta aad hadhow bedeli lahayd kulliyad ama aad raadin lahayd shaqo aan ahayn wixii aad soo baratay. hadda dooro taqasus aad jeceshahay. qodobka saddexaad ee ugu dambeeya, dooro kulliyad ku habboon xaaladaada. qodobkan waxa uu aad muhiim ugu yahay dadka raba inay wax bartaan iyaga oo shaqaynaya. haddaba inta aadan dooran kulliyadda waa inaad fiirisaa kulliyaddan aad dooranaysid ma tahay mid ku habboon xaaladaada gaarka ah. isbarbardhig ku samee dabeecadda iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay kulliyadda aad dooranaysid iyo xaaladaada gaarka ah. waxaan rajaynayaa inaad waxuun ka faa'iiday muuqaalka. intaas ayuu iga egyahay mawduuceena maanta. haddii aad ka heshay la wadaag qof walba oo aad is leedahay wuu ka faa'idi karaa. mahadsanid. intaan ku kulmi doono mawduuceena xiga. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.